سؤاشن هذه ويديسة والله هبوني وعمد معقول قال لكن عن روايتي يقول معقول قال سنة كل كاس نية دي كوسون نقطة وحيا هيد رواية أنا إن كان صاحب كيا إن استعل هاي يا وحن وضشذني مقاحي دي أنا وضشذني مركاحي اللي يربس أرضي هيد إن ربان كوقلي ridii aan ku qallay yaa de annagu ba shaqaalayso ahayn aniga ninkan midkana lacagta ururinayay midkanana uu ahaa kook iyo yaa bilaydhada ninka xala marka wax noo soo galaba waanu weynay hotelkii aanu shidanay aniga saaxiibkay wax noo soo galaba waanu weynay 12kii maalinkii iyo 12kii habeenkii laba wasladoon annagu ka cunay mooyane ridii sideedii way noogu tiilay ilaa markii dambe oo aan ka dareero oon isniraano alla ilaahu yaa harageedii kol nagaga soo celiyo bal xarigii uu kula tagtaane qisadaas riwaayadaas aniga igu soo noqnoqoto mar kasta inta badan dadka aamin inta badan dadka aad ka qosliya laakiin adiga maxaa wali inta aad aragtay ama qof ama waxay doonaan noqdo maxaa ka qosliya anu islaam ba waayga qoslisay waligeedii yaleed aad ma qosl badni inkastoo mid dhakhtar igu yiri kinina qaadata hal qoslaaba ka fiican oo yaa ka caafimaad badan buu yiri nin doctora kulli isaga dhigtay islaam ba maalin iga qoslisay islaantu ilaa meel bay ka cadhaysnayd bas bay saareyd annab ilaa qoladan basku ruux muu cadhaysan yahay waxa oranaysa kursi fadhiiso meedhano islaantu ilaa way sir dhax qaatay yar aanu inuu hinaafayo in wax kala garanay anna waan soo galo booskeeda kaliya ka banaan hal boos baa ka banaan yadiibu ag fadhiisay yiri waan ag fadhiisto aniga fadhiyo cagad haylaano haysatay uma ikabibiyaa haye sugun bay ugu tiri xogaa baan yarsu furka inta ku geejisatay on bay halka igu dhufateen maalinkaas aanu kala waan qosliyay kala maxay ugu dishay fariid un bay tiri anuba biyo cabi oran maalinkaas aanu qoslo taabonay waxa jirtay iyagana riwaayado badan aan soo dhignay baa jiray riwaayadii ila qosol badneed aan laftaydu aan riwaayadii ku jiro jilaya aan qosl gaaray waxaan isla jiray nifuus oo kale kooxdu way ka qayb qaadanaysay saaxiibkay oo xilli ormaxeedku baqar buu ku jilayay baqaar buu wax buu ku jilayay ani sudhi baa looran jiray aanu khatar baan ahaa marka waxaana nin khatar oo shirkado badan la hadlo Al Jazeera kulkul la su'aaliyo Allah waxba geelan dhoofiya Australia kaali geel naga raro waxyaalo ilahayd moogta marka gabadha Fuusiya oo aan jeclaa shirkadda iyo waxaan inta ma jiraan waa sirruna may siyara caadiya marka Fuusiya oo aan lacag ka amaadon ku geel baa badda igaga jira geelaasan yan biyo xareeda u siinaya maadaama baddu dhanaan tahay 200 kun ama ay baan ku yiri anu nin khatar baanahay mobilkan aan ku soo raadinay sawirkan tusay mobilkay uu weyn yahan ku yiri marka gabadh way aamintay lacagtii way amaysay lacagtii ma shaqo ku bilaabay oo maqaaxi ku shidanay aniga ninkan saaxiibkay gabadhii oo maqaaxidii inay cunto ka cunto doonimaan yaan garka isla galay inuu fijaan u soo wado oo maariyo suudna qabin oo kulkay aragtay oo maqaaxida fadhiya yaan anna saxankii tuuran nidi geelan cunto u karnayaan maana maqaaxida la baan nidi oo geel ma cunto cunaa geeli aan ku sheegay baa soo socdo oo geelaas gacantaydaas u bartay oo cid kale aan bishmaha ma saaro markii hore iyada iska dhaadhicinayna waxaan ku ori waxaan ahay nin maal badan ku maneystay eebuu gimal mato ka balay macal qanam wal baqarat ku maneystay eebe rijman macquulayay naysasiig ma qol nuugta linkan saaxiibka igu xigaa wuxuu yiri warusha waxa tiri makhraati ana uga hantimoodii nool barabbi uu ku maneystay geela miranay lada meeraynaysa mushaarka lacageed ma qiyaasi karinay hadda tahay mid nasiib leh waad iska raaci yaa ahayd qorshe aan ku heshiinay saaxiibkay isla markaana shirkadda maareeyo ka ahaa anna ku xigeenkiisana ahaa shirkadda riyada weeyaan shirkaddu waa riyo laakiin goortii dambe si fiican baan gabadha u jeclaa oo fiican aad badan